iyo guri jooga marka meeshan waxaa la jooga ibrahim iyo cabdinuur iyo samatar marka soomaali waxay ku dhibanta guri jooga lahay bal asxaabtan oo qaatay ama awaamirta dowladda guriga fadhiistay bal iyagaan ka waraysta iyaga iyo guri jooga siday u arkaan cabdinuur ibrahim akawada ibrahim maxaa kula tahay guri jooga libax wallahi horta xanuunkan ilaahay hanaga dulqaado ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda muslimiinta ah meel kasta ay joogaan waxaan uga baryanaa ilaahay inuu caafiyo oo ka korqaado wadankiina ilaahayna uu ka korqaado oo waxbana ku yeelin uu nabad ka dhigo intaasi waa inta hordhacayga ah marka la dhahdo guri joog horta way adag tahay nin raga inuu guriga joogo isagoo dana kala duwan ay qof walba uu leeyahay ha noqoto in aad iskool u kala lahado ha noqoto in aad shaqo u kala lahado ama waxyaalo kale aad adigu private ahaan aad leedahay laakiin guriga marka la yiraahdo dano khaas ah ama arrimo muhiim ah aad u joogto waa gooni laakiin markii la dhaho matqaana xanuun iyo dawladdu awaamir ka soo baxay loo joogo oo shaqooyinkii hay xayirmaan horta ninka ragga way ku adag tahay khaasatan aniga dib badan baan kala kulmay markasta oo hurdada oo igu badata caajiska oo igu bata salaadaha oo markasta aan ku waasho sunayaal aan joogin ma fahamtay iyo cunto karis iyo frijerkaad eegaysa matqaana maxaa yaala iyo maxaa maqan iyo haddii aad family ama xaas ama aad dad ehel ku joogaan aad soo booqanaysid cuntadii iyo dhadhankii macaanaa aad u xiistay ood meesha oolin taasina waa karantiil guri aad joogi karin bay noqonaysaa marka marmarka qaarkood waan soo baxaa suuqaan tagaa asxaabta ayaan soo raadiya haddii aan waayo waxa noqdo Soomaali keligii wareegaya meesha haddii ay weydiin lahayn cadaanku ama dadka ay weydiin lahayn maxaa soo baxday guriga joogistiisa ayaan dhibsadan dhihi lahaa intaas ku soo koobaya ayuu soo maasan tahay cabdinuur adigana maxaa leedahay libax anigu horta niyo sidii waagi hore ayaamihii hore oo uu bahalku bilownay anigu serious ma qaadan oo banaanka waa warwareegay oo dhalinyaro waa u tegtegey xaaladii markii arkay in dhimasho timi oo dad ku dhinteen oo Soomaalidii inay ku badatay in bahalka soo kordhay oo dad Soomaaliya badan cudur ku dhacay automatic waa joojiyay wixii macnaha amaawirtii waa qaatay gurigayga waa iska joognay waxaan aadi badanaa inta waxaan jiray meelaha wax laga soo iibsado marka meelaha wax laga soo baqdin baa ku galaysa alla maanta soo qaatay niyada ama soo qaaday bahalka horta cabsi baa ku galaysaa caadi yahay cabsigaas oo kale wuxuu yahay cabsi aad u fool xun cadasha adiga maanta waa walwalaysaa in gur meesha qabatay halkaas qabsatay waa xisaabinaysaa waxyaalaha ugu badan oo bahalku dhibka u leeyahay adoo dhan baa baqdin iyo xisaabiso albaabka gacanta ku fur bac gasho ama marada jaakada qabanaysa markuu furaysa mana waa waxyaala shaki badan buu leeyahay caadi ahayn inkastoo Norwegianka markii la fiiriyo dadkan in wadankan deganahay waxyaala badan aad bay u fiican yihiin sababtoo dadka amaamirta waa dadka aad u hoggaansama weeye hal qof arkimaysid gurigiisa ka soo baxaya ama calashaan dad badan oo isu imanaya meel wada jooga arkimaysid wadankii waa way kullu iskarantiineen laakiin anagu ma sameyn marka hore laakiin dadku hadda waa sameeyeen haddii la fiiriyo hadda dadku way soo yaraanayaan oo magaalada dad badan ku dhicmayso maalmahan Norway waa soo yaraatay oo wadanka hadda ugu roon Yurub baa isdhihi karnaa weeye dadkii oo dhan waa la baqay marka xaaladdu si fiican bay u socotaa dadkan hadda waxaan kula sii talinaynaa warade gurigaaga joog haddii kale waxa lagu gelinayaa qafis cun oo cad baa lagu gelinayaa dabeedna waa lagu tuurayaa lagu qubaymayo istaag banaankaas laga istaagayaa حتى تكشدي بعد ما يكونوا ضد كونوا قنيصة ضد كوي بقى يعني بركة هذا بقين مركانوا حلاي ضد كوا وسكب بقى كلنا تشوجا هنا يسكر صدا ستريس كاسو وسكتشر يايو هذا علاش كحنوتو حسيت مو بالك كقول دعي واحد ناس واحد يسكتشر يعني لكن معناها جورجا تشوف واحد كودا ماله لواء هذا لما يكسر لواء قف قالوا رباين والله سمطر السلام عليكم واني سلام يا خيارت ميشا جوجتا يا انت ريبر جنبا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نيو هو بالكان وحنون الهي كان الهي نغا هيا انيغا نيو غرجوج وا ku wareeray ma fahateen wareer zaa'ida waxa u maleynaya 20 bishii ilaa hadda guriga maana bixin
inaad dukaanka aado iyo laba mar inaad luft soo qaato maahane intaas kamaana bixin niyahow hala is ilaaliyo guryaha hala joogo hal ismaaweeliyo xaasaska hala ay sheeg hala maaweliyo hala maaweeliyo xaasaska cunno karinta ha laga qayb qaato aniga qayb waxaan u arkaa fursad qaybna waxaan u arkaa ay sheeg nasasho inay tahay waayo intaas sanaa soo shaqaynayna ma fahamtid oo nafsadii inaad guriga ku nasiisid iyo waayo subax walba shaqaa la aadayay habeenkii waqtiga laga imaanayay ma fahamtid tan kalena waxa waaye romantigo dee waqtigaagii iyo carruurtaadii iyo gurigaagii yaa waxa u helaysaa waqti ma fahamtid waxaa fiican marka inaad soo saartid waxaa fiican inaad jikada geshid qashinka guryaha alaabta inta culus gabdhaha faa'iido inaa macni waqtigaaga uga faa'iidaysid familka taas waa taas iskaabuladan waxaan dhihi lahaa ii sheeg traininka socodka waa la ogol yahay socodka ha aadaan soo laabtaan saacad 2 saacadood ha training gareeyaan maqaaxiyada iyo meelaha laiskugu imaadiyo iskugu tegin ha isbadbaadiyaan waa la dardaarmaya walaalahay waxaan leeyahay isku badnaada guryihiina jooga cudurkan hadda waxaa u malaynayaa ii sheeg bishaan hadda waxay maraysaa 6 soo maaha tan ilaa goormaa la qabtay ilaa 15 layidhi soo maaha 13 ayay dowladdu haysaa 13 soo maaha 12 lagu dhawaaqay may 12 bishii hore lagu dhawaaqay 13 way fadhiisanayaan marka kolley iskuulaadkii iyo waxbarashadii iyo shaqooyinkii olaniyahow aniga fikir ahaan in lagu daraayo umalaynaya ma fahamti fikir ahaanteyda in lagu daro umalaynaya waayo maanta keliya xalay markaas yaxanin 70 ay ahayd dhimashada maanta meeqa maraysa 76 haddaa maraan fiiriyey marka bahalkan serious sii noqonaya dhibkiisu sii wataa labada bilood soo socota aniga waxay la tahay in guryaha loo joogayo ma fahamtay صح uu bahalkaa kasii daray ilaahayna naga qabto آمين badbaadiyaan dhihi lahaa niyo kusoo dhiwo maxamed dheere saaxib akhyaarta sida adinkaba hadda aan magacoodeen dadka waqtiga ku qaadatay in ay serious u qaataan aniga markuu bahalkan la dhahay guryaha la fariisto oo iskoolada ama jaamacadii markii la aadi rabay la dhahay may adinka waa iska fariista maanta ma jirto jaamacadii xiise ma laha markii bilow arrinta serious u qaadanaysa wana iskoolada dhan waa la fasaxay jaamacadii waa la xiray meel kas waa wana bal fariisa bal adigana waa fariistay 3 beri 4 beri maraan fadhiyey dadaan wacay war hebel intee joogtaa war maqaxda baashaalooya hebel intee joogtaa guri hebela baashaalona waxaa dhahaa niyo keligaa meesha ku jabtee bal asxaabta soo salaan marka waxa arkaysaa dadkii kale waxay aad ku furaan wado ima waa kadib xoogaa marka hal maal aad wax dhan bahalka oo ka sii daree marka hadana serious dadka hadana waxa uu qaatay markii Sweden laga soo sheegay walaalahayna ku dhintay oo Soomaalida ahay marka xilligaas dadkii u qaateen serious la halo arrinta adag waaye qofkaas ha aaminina arrinta dhab tahay markaas ay armihii bilowdeen marka asxaabtu waxa idin weydiin rabay qofkiro ku soo dhawaad su'aashan in masaajidada la xiray iskoolada la xiray jaamacadaha la xiray shaqada dadka laga fariisiyay saas ee tahana maqaaxiyooyinkan ay furnaayeen ama ay ilaa hadda meelo qaar ay furan yihiin sidee u aragtaan arrintaas anigu saan u arko dee hadda wax hadeer furan oo maqaaxya hadeer ma dareemi karo ma ogi sababtoo suuqa hadda ma baxno oo dee waa horaa suuqa noogu dambeysay waagi la xiraan ka wada waagi la xiro waqtiga qaatay maqaaxyaasha la xiray iyagana inay xiraan bay ahayn isla markiiba xiraan sababtoo ah in dadku isu yimaadaanba haddii la mamnuucay dadku inay awaamurta qaataan oo meesha la mamnuucay wax kas la mamnuucay inay sida dadku sameeyeen oo kale maqaaxyaha kale dadkan waddankan u dhashay ay maqaaxyada xireen in saas loo xiray ahayd صح واي waxay ahayd maqaaxiyooyinka in la xiray ahayd laakiin niyo dee saa u sheegteenba anagu maana qaadan serious ma fahanteen ilaa 20kii bishii serious looma qaadan baasha markay adkaatay waa tii lagu kala tegay ma fahanteen ummaddan niyo jacayl iyo dee anaga dhaqankeenaaba ah Soomaalida inay isku imaato meel wada kaftamaan ma fahanteen ayagoo shaqo ku jira iyo ayagooba ay sheeg aanan shaqaynaynba marka waxaas waxa anaga dhaqan u leenahay waa teeda kale iskama dayn karno laakiin hal isku dayo aad hal isku taxaloojiyo wax kasta waa la bartaaye soo sax ma tahay
ها وصح صحنا horta sida asxaabteeda ay ka dhawaajiyeen makhaayadaha la xidhayo aniga waxa igu cajiib badneed ma taqaan aan la yaabo waxa waaya nacam markii awaamirta dawladdu ay bixisay oo ay Norwegian-gii la dhahay gurihiina jooga oo gurihiina fadhiya hal mar kaliya waxaan dareemay ma taqaanaa hal shimbir oo socoto waan waaye waxaan isku dayay in aan magaalada maro maadaama aan lahayn iskool lahayn oo aan shaqo lahayn oo aan seminar ama u tago lahayn iskool waxaan isku dayay bal inaan soo fiiriyo magaalada marka waxaan noqday oo daraasad ku sameeyay in dadkan aan la degan lahayn Norwegian-ga ah awaamirta hore u qaateen laakiin anakana ee Soomaali sida sheegana labadeena asxaabteena ah Samatar iyo Cabdinuur waxaynu nahay dad Soomaali nacabde ehel iyo qaraabe iyo asxaab isku xidhan hore kamanu qaadan awaamirta marka waxaad arkaysaa makhaayadaheena Soomaalida inkastoo ay badneen ma maqashaa Samatar codkaaga oo ka Ibrahim waa codkiisa maqleen ما مقشة حد ما مقشة أنا أكون مقلع عبد النور ما مقشة هذه أنا أسمع ما هو مقلع صح أوكي مركا waxaynu nahay dad ehel iyo asxaab iyo qaraabo oo magaaladan isla degan markii aan u kuur galayna makhaayadaheena Soomaalida ama kuwa furan ama kuwa aan furnayn waxaad dareemaysaa wali awaamirta inaka hore u qaadan baad arkaysaa dadkeenu oo ku mashquulsan yihiin in ay fadhiistaan ama ay sheekeeyaan ama iska warsadaan xaaladda coronavirus-kan xanuunkan adduunka xirxiray iyo waxaad arkaysaa axwaalo kale ama waxyaalo kale oo ehelka iyo dadka iyo asxaabta ay u socdaan markasta taasina ma noqonayso waxa loo baahan yahay ma taqaanaa in la xidho makhaayadaha meelaha la fadhiisto ee lagu caweeyo aynu noqono sida dadkan aan la joogno awaamirta qaadano sidaasan ku badbaadinaa caafimaad ahaan iyo ma taqaana xanuunku uu naga tagi karaa marka asxaabta ayaa u deenayaa wixii ay tacliiq ay soo jeedinayaan Ibrahim ka dhex galo waxa ka dhawaad markiiba waa la xiray iyaguna way xireen isla markiiba dadkii wax weyn waqti uma sii furnayn innaga dhibaatada aynu leenahay waa jacaylka oo isdhexgalka qaabka daran aan leenahay oo inuu kala maarmide hadba guri loo kala wareegayo waxaasoo kale baa keena cudurka oo dhibka ah la yiraahdo la joojiyo yaan la isu tegin taas ayay Soomaalida aynay ku dhaqaaqin oo ay sameyn markii hore inkastoo hadda la qaatay oo aad loo baqay markii xaaladda arkay dadkii ugu badnaa ay noqdeen Soomaalida sheegay dad badan oo Soomaaliyeed Sweden ku dhinteen marka hadda xaaladdu soo joogto way fiican yihiin marka inay saa ku sii wadaaniin baan aad u jeclaysan lahayn marka hadda waxaan ku wareejiyay Maxamed اوكي لكن انا كان راح اقرا محمد الرياض صح استاذ تفضل ابراهيم الرياض baan rabay inaan ku yar darsado oo aan la yar tacajubay ma taqaana markii aan intaas aan magaalada aan u fiirsanayay aan islaha bal wax soo raadi oo furan oo rabo inaan ka warkeeno oo soo ogaado ama baaritaankayga aan ku ogaado waxaad aan tagay oo arkay makhaayad kaliya oo Norwegian u leeyihiin maalintaan fadhiistay makhaayadaasi anigii asxaab koox ah ama dhalinyaro asxaabteena ah waxaanu dareenay oo aragnay in qaabkay u dhisan tahay makhaayadu ay ka duwan tahay qaabkii ay dawladdu soo bandhigtay ama ay dawladdu tiri ma taqaana hala joojiyo sida makhaayadu nadaafadeedu aad bay u sareysay habdhaqankeegu aad buu u sareeyay dadku si ay u kala fogaanayaan aad u sareeyay marka waxaan dareemayaa ma taqaana wali Norwegian-gu qaar sida Soomaalida in ay ku jiraan ganacsi ay raadinayaan iyo dhaqaale hadaba ka soo qaadaba aan hadalkayga saa u dhigo waan ka baxay صح waa muhiim waxaan rabinaa kaloo ku dar insha Allah taala su'aalna ka dhigi karo waxa waaye muu aragtaan in ay dhaqankeeni Soomaaliyeed oo bulshada inay isku imaato in la isbooqdo in ay dadka jacaylka ka dhaxeeyo iscaawintii wax walba ah inuu coronavirus-ka shuruuciga la soo dejiyay talaabooyinka la soo dejiyay dawladda inay ka soo horjeedaan anaga yaa la isku imaanaa lahay anagu isku maashada jecelnahay yaa la salaaminaa lahay salaanta iyo habtaan jecelnahay
qofka hadduu xanuunsayaa lasoo booqanaa anaga inaa booqanaaba number one noo ah masaajidii iyo muslimiinta inkastoo kala samanaa masaajidii lama aadayo dad isku maashada ka dhalanaysa guriga hala joogaa lahay marka bilcagsigaas badanaa ka hor imaanaya arrintaas sidee u aragtiin niyahow aan boodey cabaaradan ma hadlinay mar hadda waxaa soo laabtee noqotee niyahow waxaad u malaynaysaa coronaviruska hadda yaraa saaxiibanaha maraan la hadlayo ostri joogo wuxuu igu yidhi ii sheeg 2 bil kadib baa waxaa la furayaa meelaha la iskugu imaado ii sheeg meelaha la iskugu imaado oo sida maqaxyaasha bishaadadoo kale iyo maya meelaha maqaxyada maaha meelaha lagu cibaadaysto iyo waxaa la 2 bil kadib baa la furaado صح waxaa ka soo horeeyay waxbarashadii iskoolkii iyo waxaa ka soo horeeyay waxyaalo badan إلا مساجد anigu waaba lasii fogeynayo mafahtay صح marka waaba ujeedaa mar aniguna doonaya mafahtay aniguna doonaya marka wallahi waxaan dhihi lahaa ii sheeg guryaha lagu jiraan dhihi lahayo sababaha masaajidka dad badan ma oga waxaan la hadlayay dad guddiga ka tirsan masaajidkan la hadlaya waxaan dhahay maxaa masaajidkii ka waran xiritaanka dad badan doodooyo waxay ugu dhaheen masaajidka number 1 hal sajaayada dadka waxaa ka dhaxaysa hal roog salaada 5 salaado hal roog lagu tugtaa qafa wuxuu qoraal soo qoraya briefka hadda waxaa la soo sheegay in the London UK okay arino caadi oo qoraal soo qoro dadka kommentaarka akhriyna dadka cagweynina wuxuu soo qoray cagweyna su'aashiisa aan sheegno wuxuu soo qoray dadka wareega badan ani camal asaga camal wuxuu dhahay maxaa ii haysin xal marka su'aasha cagweyna dadka waxay ka hadlaan sameesha aan u keen marka masaajidka markaan ka hadalno masaajidka hal rooga dadka dhan ka dhaxeeyo ibrahim meeshuu ku tugtay hadaatay anaam duur ku tukanayo meeshii wisqaadka hal meel waaye dadka dhanaa ka dhaxeeya waxaa kaloo ku xigta musqulihii hal mar dadka dhan wada isticmaalayaan albaabkii waa lasoo wada furaa marka waxaa u malaysaaba in masaajidkii qaabkii annaga u wada joogno in u samaysay inaa waxa la faafiyo marka tan labaadna diinteena waxay ilaalisay nafsadda qofka bilaadanka wax walbay ka horeysa in la ilaaliyo haddii cabsi imaatay marka culammada siinoo sheegeen in oo laga baaqdo waaye oo masaajidkii oo dadka nafsadooda la ilaaliyo macni maxamed dheer waxaa dhihi lahayd miya ama samatar fadal waxaa dhihi lahayd miya coronavirus galgaceylku ka soo horjeedaa saas u malaysaa maamaha hadda la sameeyey maamaha cusub oo soo baxda waxaa ka mid ah bilaadan iswaayey corona kala geeno لكن أنا محمد بالأدرس وهاي كورونا كل جي لكن محمد أنا سيدان قبل ما تخانا هرتا هدينو نهاي دad مسلمين oo dadka diinta ku abtirsanaya oo diin wanaagsan haysana horta dadkan waan kaga horeynaa haddii noqoto dhinaca wacyigelinta haddii noqoto dhinaca nadaafadda haddii noqoto dhinaca iska warhaynta ma taqaana oo dadka wax u sheega haddii wax dhacaan ama masiibooyin dhacaan haddaynu nahay dadka muslimiinta ah waynu jecelnahay diinteena in wax badan noo sheegto markaysaa maadaama ay qurbaha fadhino masaajidda la yiri hal xiro waa sax waan ku taageersanahay sababta waxa jira dad xanuunsan baa jira oo adigu aad ogeen oo dhinacaaga ku tukanaya qurbahana waxaan la imanay ma taqaana dad badan oo qaba sonkor qaba dad macaan qaba dad waxa arkaysa waayeel ah ama dad dhalinyaro oo xanuuno kala nooc ku dhaceen baad arkaysaa marka si la isku qabadsiin culimadu way ku saxsan yihiin awaamirta dawladda wadankan inay qaataan ayaan dhihi lahaa maamtay marka si ay dadku wax u soo gaarin dadka caafimaadka qaba taasaan ku darsanayaa waa gartay cabdinuur adiga maxaa ka leedahay arrintii waxay waa magneeda u malaynaa masaajidii la xiray iyo waxa samata dhaa Austria waxa laga yaabaaba in iskoolada ay ka hormaraan masaajidii goobaha cibaadada marka waxa dhacday goobaha cibaadada waxa waa dhahay inay wixii ay ku badan tahay laga yaabaa marka maxaa ka leedahay arrintaas niyo waxba kama qabo waxba kama dhigi karo oo sababtoo ah dee qof wadanku markuu soo noqdo caadi xaalad noqoto in waxyaalahaas oo kale in caadi iskuulada iyo muhiim weyn la furo
waa gartay oo sababtoo haddaan iskuul iyo waxaan markii la furo wax waddankuna wada raaqi karaa ma garanaysa laakiin haddii iskuulka la xiro oo wax ka saxiran yihiin dee weli wixii baa jira wey markaas cuduradii iyo wixii baa weli jira laakiin haddii waxay istaagaan markasta xaalad nolosha siday kusoo noqonaysaa maxaa ka leediin arrintan ah markay soo baxaya arrintan oo joornaalada xitaa kusoo qoran China camal ninka muruneys oo ku dhacay cudurka oo jooga magaalada uu kasoo dhashay markaas uu ka reestay ayuu ka reestay isaga marka waxay dhaheen waa inaan baarnaa jirka afrikaanta iyo siduu cudurkan macnaha jirka awood ugu leeyahay macnaha saasay soo bandhigeen Soomaali badanaa markaas waxay aamintay inuu muslimiinta dadka madmadow uusan ku dhicin cudurkan oo waxba ka taraynin oo loogu talagalay dad qaar sida dheen gaalada loogu talagalay hadda waxa arkaa video mara dheereen oo Soomaaliya laga soo duubalay cudurka hal iska ilaaliyo kulaha war gaalada loogu talagalay anagu laguma talagalin Soomaalida muslimiinta ku dhimanaysa mu jeedaan iyo muslimiinta kale oo Yurub jooga nin dhana weyn la dagaalaan nin wuxuu war gaalada noogu tagno hanoo keeneen cudurkan hanoogu yeerana marka arrintaas maxaa ka leedin adinka waxaas waa fikrad qaldan weeye markii waxyaalihii la dhihi jiray warwaado xataa waxaan maqlay anigu qof snap miyuu ahaa mase wax lasoo dhigay dacaayada oo kale oo whatsappkii lasoo dhigay oo leeyihiin waa duray qaldamay waxaas macnaha wax qaldan weeye fikrad qaldan weeye qofna dhaafi maayo baalkan sidoo ugu dhaco hadduu ku dhaco xilli qofka ku dhici karaa waana kaa bixi karaa ma garata laakiin siyadaba inta badan waa dilaa aad u xun oo dadka aad u leynaya waa ujeedaan waxaa jira xaaladaha hadda ka jira adduunka maalin kasta faransiiska oo kale hadda ayaantan 1,100 1,300 1,400 baa ku dhinta marka wax loo macnaha wax lagu ciyaaro oo macnaha lagu joog lagu sameeyo oo social media soo geliyo oo la dhaho macnaha dadka ma qaban karo waa duri xumaaday wax shaqeynaya ma dadku inay taxadar weyn sameeyaan dadkana ka fogaadaan awaamirtana qaataanin gacmaha dhowr jeer dhaqaanin macnaha inta loogu talagalay 2 mitir qof u dhawaan ama ka fogaadaan in loogu talagalay inay jabin waa muhiim niyo aan ku darsaday Cabdinuurow horta Soomaalida anaga bini'aadanka oo adduunka kaga simanahay ma fahamtay bahalka markuu cusbaa ciyaar adduunka dhan Mareykanka meel walba ciyaar loo haysto ma fahamtay wax kasta dee umaysan macnihii ilaa uu qofka uu soo galo waddanka uu soo galo dadkii ay arkaan ama uu saameyn ku yeesho markaasay ummadii baraarugaysaa ma fahamtay wallahi waxaan arkay waddan Latin ah inaad ku aragteen clipka ma arkaan booliiska macnihii dadka waddamadii lagu soo daayay guryihii marka wuxuu sameynayaa qofku guriga ku arko banaanka dadka taagan baabuur shabaqle wataa way ku xareysanayaan ummaddu waxay sameynaysaa daaqaday ka fiirinee xaafadihiya kaamira lagu hayaa moogta gaariga booliisku markuu baxo kuraasta ma arkin oo cadcad oo maqaaxiyada Soomaaliya la tagi jiray banaanka la soo fadhiisanaya gaariga markuu tago ma fahanto u gurina camal marka adduunka intiisa kala kala simanahay wax oo aniga dhaliil ah ama usul isleeyahay anigu waxaan dhaliilaya fiiri aniga ma dhaliilayo waxa lagu soo rogay bando inta xilliga ah waxa la soo qaadaya waa soo baxaynaa heeskii waa soo gelinaya waxaas baaliyada loo dhisayaa oo waxa leeyahay soo bax wax ciyaaro maaha joog maaha waxa laakiin ana mid kale ku darsanayaa Ibrahim adoo maasan Maxamed wuxuu soo qoray Maxamed Odawa wuxuu soo qoray Boris Johnson ayuu ku dhaco dhaay asagoo leeguma dhacay horta mid aan ku yar darsado adoo raali ah Maxamed Odawa fadal saaxiba fadal Maxamed horta xanuunkan Maxamed haddaan u jawaabo oo siiyo ma taqaana jawaab yar kooban horta xanuunkan waa xanuun rabbi keenay weeyaan oo dadka balaa'aadanku gacmahooda ku kasbadeen ama ku samaysteen ha noqdo mid fusuq ah ha noqdo cadho Ilaahay ama ha noqdo waxyaalo kale oo caafimaad darro ka kacay ama dawladuhu u isticmaaleen arrimo siyaasadeedba intaas haddaan ka gudubno waxa weeyaan nacmo wax uu Ilaahay keenay faqiir iyo taajir madax iyo shicibba uu ku dhacayaa ninka Boris Johnson ama wasaaraha Ingiriiska aan arkayna maanta ku dhacay ma dhihi karno isaga isku riday laakiin waa wax Ilaahay ugu talagalay weeyaan uu qaaday oo hadalkiisii iyo ma taqaano uu lahaa ma taqaano iguma dhacayo taas waxba kama jiraan marka waa fikir qaldan uu aaminsan yahay weeyaan صح waxaan kaloo waxar inaa ku daro arinta ah mawduuc haddaa waxar oo
oo mustafa hoos ku soo qor su'aasha waxay ahayd adiga ka samatar ahaan ama ibraahim ahaan mise cabdinuur ahaan maxaa samaysay si cudurkan uga hortagtiin maxaa samaysaan qofkiina waa kusoo bood insha allah ina si uga hortagtaan cudurkan أنا كهر رأي بل أصحابتي أنت تفضل هذا الكيسة هرتا أنا جو حنون كان مركان أركي وآد بأولي يابي آد بأولي يابي أنا جو مركا أفريقيا كسر نقضي أو حنون كلا أولي هذا كودودية ويبصور دعي أو مجال مركان لسه قلمات كنا واحد جانوري سنة كان كجرنا لبدي دي ما ينسوا قلي laba cisho anigoo jooga magaalada waxa la qabsan waayay jawigii waxa la qabsan waayay cuntadii waxa la qabsan waayay joogitaankii magaalada marka waxay xanuunayeen lafa qarac baan dareemay waxaan dareemay xumad badan oo igu soo ziyaaday wallahi inaan been nii sheegin asxaabta waan run baan uga sheekeynayaa marka صح marka aan joogi kari waayay laba usbuuc waxa jira 3 beri oo hal usbuuc joogi kari waayay wallahi leegahayga ayaan tagay balan baan sameystay subaxnimadii xataa waxaan isqabsanay naagta reception ka joogta tiri ma taqaana maxumad baa ku haysa waxaan ku yiri xumad daran baa haysan ku yiri waxaan ma aha waxaad ogaan karto laakiin dhakhtarka ii balami baan ku yiri adigu waqtigiiba ii balamisay isla galabtii waan tagay dhakhtarkii baan la hadlay wuxuu arkay jirkayga googo u arkay ma taqaan oo diirku ka baxayo kuudiyaan wax lagu yaqaan weeyaan in uu adigu kareem marsada kadib waxa isku arkaysaa adigoo qalalan jirkaagu iyo xumadii oo korka u soo baxda arkaysaa marka saas uu eegay wuxuu marka jawaabtu isiiyay waxa weeyaan korkaagu uu qalalan yahay kareem waxaan ku qoray 500 oo kron ah iyo daawooyin uu siiyay iyo dhiig iyo wax iga qaadqaaday anigana dhakhtarka waan la dooday waxaan leeyahay war xanuunkan xanuun ma aha baan ku yiri ataqaanid ma aha marka af Soomaali ahaan baan u sheegay oo isaga u micneynayay adigu wuxuu yiri ma taqaana bal usbuuc igu soo noqon hadii aad reysan weydo usbuuc kadib baan ku noqday muu joogin dhakhtar kala joogay kii baan u sheegay dhakhtar Hookland Circus oo magaalada ku dhex yaala ayuu ii diray $3 laga shubtay waxba laga waayay wali xanuunkii uu hayaa marka coronavirus igu soo galayna waxa sir alle coronavirus xabka ma qaadaya kuudiya waa sidataay dadka bal dadka wacyi gali marka waxaan bilaabay in asxaabta qaar i waayeen yiraahdeen maanta war ma hadlaysid telefoonka ma qabanaysid aan xataa maxamed dheer ka mid yahay oo facebook soo qoray dhaan marta warniyo sal ala nabi war idaay waxaan u sanahay ma fahamtay marka coronavirus kan aan wadano maanta anigu cisho dhowaan dareemay laakiin serious uma qaadan cisho dhow waxay soo gashay maanta dhuunto xanuuntay markaas ay war kale waa kan waa kuduudiye weeyaane bal waxa badsataa ma taqana biyo karkaraya sinjibil iyo milix badan ku daray oo isku uumiye marka ma fahamtay heer waxaan gaaray ma taqana oo dhahay guriga ha jooginba waa inaad magaalada soo controleyso soo eegto hawada eegto adigu xanuunkan baa sheegaysid ma basiidatid marka aan marka hadalka soo gaabinaya war anu coronavirus ba ka hadlaysana kuduudiya ayaa sitaa ku yiri ma fahamtay ilaa imkan waan rumaysanahay in xanuunku jiro laakiin ma rumaysnayn dhinacna ka dhaxgalay hal su'aash ku soo celi maxamed dheer xogaa yara kacay cabdinuur ni afrikada waddanka markii soo galay karantiina loo galiyay baydba wala sabab cabdinuur adaa iga yaabay marta ayna maxamed dheere iyo samatrow maalin toddobaada oo muddo adigu aan joogo maadkan 2 usbuuc ayuu cabdinuur arkay magaalada markaasuu yiri warbowe seen noqoto wax waa dhamaatay halkeen ka tiimo maamtay markaasaan ugu jawaabo ku yiri maanta war ma dhamaadaha afkayga iska istilan asxaab ay la socotay markaysa ya markaasaan dareemay aniga dhaxgala waxay leeyihiin cabdinuur adiga sidee uga hortag maxaa samaysay maxaa isticmaalaysay wixii la soo jeediyay ya kiniinkiisuna waa stay home ama gurigaaga joog waa inaa gurigaaga joogta gurigaaga isku joognaa waa ujeedaa dadkuna intaa qaataa wey haddii lagu yiri gurigaaga joog wax u dhaama ma lahan gurigina waa in gurigiis joogo wax kale ma jiro baa daawo ilaalna male dadna ha u tagin ha taaban ha istaaban waxa la taas wey mana qofna ha taaban qofna u geynin gurigaaga joog waxaaga la joog fadhi cunada iska cunfariso wey waxaad inaad cabaar baxdo alaabtaad soo iibsato ma ay dawo kale male markay koortag waa intaas
kahortaga soo kuma dirtid antibacteria iyo saabuunta guryaha ku taalay gacmaha la dhaqa iyo arrimahaas ka waran taas waa qasab inaad dhowr jeer gacanta dhaqdo hashiis mariso albaabka markaad ka soo baxdo markaad aad geshid supermarketada meelaha cunada lagu iibiyo oo inaad markaad hore ka gelaysid ay taalo alaabta ismarisid ama bac gashatid alaabta qudaarta ku qaadatid ku ridatid goorta bacda soo dhaaftid bacda iska qaadid ku tuurtid meesha qashinka alaabtaadii meeshii iibsatid lacagta marsid baxdid guriga markaad tagtid albaabka soo gashid albaabka gacanta ku furisaa qasab way gacantii waa taabatay garanaysaa waa inaad intaadan alaab bacda dhigto musqusha tagtid bahasha soo tirtiratid markaa bacdi alaabta kala baxdid weliba meeshii inaad dhegtaa qabato maahan inaad sida gudaha gacanta ka bilowdo saa balkaysadu wey important wey midda labaad meel kasta aad markaa taabatoba sideedaba dhowr jeer aad taabatoba inaad markasta dhaqdid wey weelku inuu ku olay mashiinka ku gurto markasta weeye waxyaalahaasoo kale waa muhiim nadaafadda in lagu dadaalo samatar adiga kahortaga maxaa samaysay xataa buufs waa jiraa buufs waxay ku tagaa jaakadihi aad meelaha kusoo murta xataa buufs kaa gelaya mashiinka guriga jaakadaha mashiinka ay samatar adiga kahortaga maxaa samaysay aniga awal waa bixi jira horta balaan leega waa la samaysta ma fahat haye markuu baalkaan arkay in dadkii borin u bilaabmay labadii maalin saddexdii maalin ugu horreysay iyo 5tii maalin 10kii maalin saaxiib aniga balaan waa la samaysta waxaan samayn jiray habeenkii oo kale soo baxa asxaaba u tagi jiray waa soo baashaali jiray hadhowna baska ugu dambeeya soo qaadan jiray dee markuu baalka serious noqday ka hortag ugu weyn aan sameeyay wuxuu ahaa guriga inaan ka bixin dukaanka oo kale haddaa kasoo adeeganayo waxay u sameeyeen babaasha gacanta lagu dhaqdo markaad soo gelaysid allahu mustacaan taasoo kale way sameeyeen markaad soo laabatid oo kale niyo hal midna oo ku dari lahaa hadda igu soo dhacday boostada haddaa aragteen boostooyinka maaragtay haye ninkii warqad ka doonayo si fiican maaragtay boostada naftigeeda biyuu qaado ku shurushee farling albaabkaaga iska waayo niyahow fiidiyo badan oo adduun weynahaas aan ka daawaday waxaa ku arkaysaa nimanka deliveryga keenayo wax keenayo gurigii iyo alaabtii ay wadaan wixii waxay ku haleynayaan inay saas dhahaan maaragtay marka laga taxadaro ha la iska taxadaro santarada markii la raacayo ii sheeg taxadarka hala muujiyo nimayo aniga waxa waaye ma baxo aniga fulaya ahay gurigayga laba dhinac waaye qaybna waa jiifkana waa hoos korna waa fadhigii maalintii koraan joogaa habeenkii markaan seexanayana hoosaan joogaa jawigaa bedelanaya macnaha jawigaa bedelana santarka waxa waaye fadhiga waa maad sax gurigaygiina waxa waaye hoos bas maxamed odawaa hadda wuxuu dhahay meeqoo soomaalida norway ku dhacay ilaa hadda waxaa ognahay 270 mise daraad oo ahay kulleyba hadda waa la joojiyey in lasoo qoro Fodland hadda way joojiyeen maanta fiirinaya waa ka waaye laakiin doodii dheer keentaala dadka ka doodeen waa loo qoraa cudur waa waxaan wax ku saabsan maaha qoomiyadda saa cudurkaas leh maaha laakiin markii ay soo baxday Fodland inay ugu badan yihiin ama dadka ajaanibta ah oo ku dhashay waddan ka baxsan Norway waxa lagu soo qoray in Soomaalida ay tahay su'aalaha dadka qaar ay soo qoraan rabaa talooyinka boosada waraaqadaha furfurna Mustafa ku soo daray nadaafadu waa muhiim foosii soo qortay Jamaal Camal fulay wali ma aadiimiso iska deesinoo soo qoray marka asxaabta su'aalahooda maxamed oo aan ku darsado wax yar asxaabteena Samatar iyo Cabdinuur sidee looga hortagi karaa ama la iskaga ilaalin karaa هاي سؤال كلي تاوغلي تفضل ها marka qof walba horta sida uu taxadarayo ama uu nadaafadiisa u ilaalinayo qof walba isaga ayaa yaqaan uu isticmaalayo marka aniga ahaan hadii aan ku darsado qofka waxa loo baahan yahay marka ugu horeysa sida diinteena noo sheegtay ma taqaan diin nadaafad badan ay tahay qofku meeshu seexanayo iyo meeshu degan yahay
horta waa inay nadiif u ahaataa marka ugu horeysa waa in daahyada guriga ku xidhan ee dhaska wata maadaama waxaan xanuunkan uu yahay aad samboor ka qaadaysid uu yahay hargab cadhooday oo kale ay is yiraahdaan Soomaalidu u bixiyeen aad ka qaadayso hadhow talo kugu xumaanayo qufac iyo mataqaana qandho ku keenayo xanuunkii sidaa ku qaadaysaba marka horta waxaan dhihi lahaa inuu qofku nadaafadda kitchenka iska hagaajiyo nadaafadda musqusha uu hagaajiyo xataa uu hagaajiyo mataqaana markuu baxayo dharka uu xidhan yahay inuu gooni u dhigo oo dharka kale uu ku darin ayaan anu qabaa marka tan boostada asxaabtuna weydiinaysana kulley anigu de furaha markaan boosta furayo dhinac un baan ka geliyaa furihii aan ku furayna kama aqaan meeshu furaha kale ku jiro markay boosta waan soo qaadaa gurigan keena waxaan isku dayaa mataqaan markaan fura dhammaysto inaan gacmahayga ka farxasho oo aan biyo kulul iyo saabuun isku daro marka oo dhowr daqiiqo qaadanaysa aan badnayn taasina waa muhiim weeyaan biyo kulul gacanta qofku inuu ku dhaqdo iyo saabuun isticmaalo marka xataa guri markuu soo galo tan kale ku darayna qofka awlaad hadduu leeyahayna waa in uu ka ilaaliyaa caruurta iyo familiga markuu guriga soo galo fiidka waa inuu dharka sito gooni u dhigaa uu meedhaa afka cadaydaa oo dawo ku shubtaa oo bakteeriyada disha gacmaha dhaqdaa kadib buu ilmihiisa qabsan karaa intaa ka hor haddaad soo gasho habsiisa waxaa dhici karta inuu ilmu kaa qaado waan ka baxay hadda marka mawduucan kale oo dad badan ay ka hadleen oo weliba qaar badan ay ku doodeen oo dad badan ay article ka qoreen dad video live ay soo galeen Soomaalida inay ugu badato aan noqono 200 iyo hada 35 hadda meelahaas oo cudurkan ugu dhaco kan ugu soo xigo oo 50 mise 60 oo ka yahay Pakistan waaye Swedish ku xigo kadib wadamo kale ku xigo هذا ولا جوجي وحاس ضدك كدودين لكن أكلو موضوع ايش اني دمينا هذيكم ما وحاس انيgu waa ka soo horjeeda waayo hay waa kusina samatan ummad in la isha lagu qabto waxaas waa qalad dad dhan u dhamaanayo ummad dhan u dhamaanayso wadamo u dhamaanayo wadan dhan maalintii kun ka dhimataaniyo annagoo 240 dad ku dhacay waxaas waxa ku dhaca waxa wax niyo oo jinsi naceeba iyo Soomaali naceeb aan u arkaa aniga waraniga عبد النور الله ما أصلا ما يستر عبد النور dadku qalad in layna dhex saar dadka laga soo dhex saaro waa ku fiicana ma ku fiicnin waa kaaga soo jeedaa soo daan may warkayga way waxa uu leeyahay ay labadiina marka hadlaba waan iska diinayna amarkii qaadan weynay waa istaahil in dadka laga soo dhex saaro waxayna ka qaldan qaladkeeni ma layna tusay waa inuu adbayno fiicnay wake up call bay waa layna tusay qaladkeeni baa la tusay dadka ugu badan oo waxa sameeyay ugu cudur ku dhacay weeye baa la yiri Soomaalidu oo wadanka aad ku saameeyay sax weeye wax fiican wax ma ahayn dadkii marka hadda wixii ama hortii qaadanayaan waa la arkay waxay joojinayaan dhibaatadii isu geegeynaya guriga la isugu booqanayay ama calashan isu tagtag oo dhan baa istaagaya wax fiican bay helaan wax ma arkaan jinsinimo xumana ma ahayn walaalkay aniga ra'yiga waxa laga yaabaa in dadka loo gudbin waxa laga yaabaa Soomaalida inay ka xumaayday qaabkii loola hadlay oo loo sheegay oo cudurka iska daaya guriga jooga qaabka xataa in hadalku gaarin baa laga yaabaa dhibaatooyinka u keentay badana aniga ma qabo fiiri saadee dawladdu dirama soo saartay tiri dadka ugu badan ajnabiga ah oo Soomaalida ah baa ugu badan oo cudurka qaatay wax xumaan u arko isirnimo xumaan ilama ahanig niyo aniga waa kaaga absolutely fikirkaas aniga waa ka soo horjeedaa ma fahantin waxaan uga soo horjeedaa wadan qowmiyad in la macnaheedu ii sheeg dadka maxaa ka dhex saaray marka taadi su'aalana soo weydiinaya maxamedow waarkoya aniga ma waxa ahay wadanku ugu dhimasho dadku ugu dhimashada badan ma ahay mise dadku ugu dhicitaanka badan ah Soomaaliya may adiga dadka soo gudbiyay baan nahay ugu badnaa sababta waxa weeye waxyaalahaas waa isu tagaan badan isu tagayno amarkii ma qaadan weynay ah waa run anigu 10 jeer ku imi soo maahan waagii dhaweyd runta ka hadlaynaa ama isu nimi taas ka bacdi xaaladdu markay serious noqotay isu hadalkana ma yee markii xaaladdu serious noqotay baan joojinay inaan isu tagtagno laakiin markii hore waa la isu tagtagi jireenayo yaan been la isu sheegi marka wixii runta fiiri qowmiyadaha kala sineen wax anaga noo gaara ma jirin horta samatar iyo Cabdinoor samatar iyo Ibrahim hal mar adinko maasan Ibrahim adinko maasan Soomaalida
in laga soo dhex saaro mujtamacaas oo ma qabi aniga mana qabayo weligeena ma qabayo ummadaasa wax la qabnaa haddaan wada caafimaad qabnana ayagaa la qabnaa haddaan wada xanuunsannahayna ayagaa la xanuunsannaha hala dadaalo horta anigu samataro labadiina fikirkiina labadiina inagu kooban yahay laakiin ani marka la dhahdo soomaalida maxaa loo takooraya ama discrimination lagu sameynaya marka la dhahdo ani waxaan kasoo qaadaya wadamada Yurub dariskeena ama Mareykan kama soo qaadayo kama hadlayo laakiin markaan dhahdo Norway anigu waxaan u arkaa ma taqaana Soomaalida Norway fadhida inay Soomaali dhiga adag yihiin baan u arkaa runtii hadda la isku sheego inay dhiga adag yihiin baan u arkaa sababtoo ah waxay ku dhiga adag yihiin ma taqaana bal Oslo tag waxaad arkaysaa ma taqaana anigu usbuuc dhaweyd waan ka yimid Oslo ka yimid waxaan arkay ma taqaana Greenland oo shidan baad arkaysaa waxaad arkaysaa Soomaalida masaajidda ku tukanaysa aad arkaysaa waxaad arkaysaa Soomaalida oo dariiqa cararaysa iyo caruurtii cararaysa aad arkaysaa oo ilmihii fogna ku riixanayaan dumarku marka waxa Soomaalida loo takoorayo ma aha cunsurnimo laakiin habdhaqanka Soomaalida ayaan kala imanay wadankii dhaqankii Soomaalinimadeena ma sidano dhaqan cadaan iyo dhaqan reer galbeedna ma sidano run hadda la isku sheegay weeyaan xogaa ama qaadashada anaga dhaqan cadaan iyo dhaqan reer galbeed maxaa uga baahan anaga dhaqan aan leenahay may wax uga baahan halka dhaqan fiiri qaadashadii way ka nimaatay wixii loo sheegay bayna qaadan si sax dad deg adag baynu nahay day qaabka waxa qaabkii waxa laga gaabiyey oo annaga lagu soo sheegi lahaa Soomaali haddaan nahay dadkeena aqoon-yahanada ee siyaasiyiintii ummadaas ka gaabisay ummadda inteeda kale wax garadka inay wax soo gaarsiiyaan ahayd inay si fiican wax soo gaarsiiyaan ahayd ubadka la hadlaan dadkii wacyigelin badan u sheegaan laakiin ma aha in Soomaaliya ummadoo kale laga soo saaro taas aniga waa qabaa dhaqanna waa leenahay dhaqankeena dhaqan ka fiican ma jiro waradii fiiri hal mar هاي عبد إبراهيم عبد الله إن شاء الله gurigaaga joog baa lagu yiri oo ilaa wixii kiniinkii baa wuxuu yahay gurigaaga joog ba sheekaduba cudurkan waxa la dadka gurigaaga joog maxay Soomaalidu amarka u qaadan weyday gurigooda joog weyday su'aashu waa qaladku halkaas ka yimid naag soo istaagto news ku kaadi marta ma qaadatay warkii anigu war problem baanahay marta ma qaadan inaan gurigeena joogno labadeena niyo aanan fiirinay day Soomaalidu amarkaasay qaadan markii hore markii la sheegay oo Sweden waa ku dhimatay intaas la yiri oo warkii soo baxay dawladdu faafisay dhiin dadka ugu badan oo ku dhala qoomiyada ku dhacay saas Soomaalidu qalad bay u qaadatay taas laakiin anigu qalad uma arag hadii la soo saaray dadka ka soo dhacsaaray de waa qaldannahay أنا عبد النور ميت كلام كنت أرسلنا يا سمتر أنا مين هالمر هذا الكيسية ما تنهى اللي سنادكم ماسن عبد سمتر وحو عبد النور وما أكدت رأيه اسكو سو إما دونه سمتر تاجي أنا إن جوني أو نولف على مر الربو أنا نكان ويك أب كول وهذا الكوكسينا سمتر إن إبراهيم نور هذا إن شاء الله تعالى وصينا ونوصل على وصل كوبرنا وحروا وصل كوبرنا waxyaabaha aan ku dhameeyo waxyaabaha oo muhiimka waxay tahay oo dadka inay muhiim ay ka hadlaan dadka Soomaaliyeed mowduuc waxar anagoo ku dhex jirno waxara ku dareena dadka Soomaaliyeed cudurku ku dhacay oo qarsanaayo oo ama kale soo la karantiina gal oo na gelaynin ama kale waxyaabaas dhan la faray oo ku imaanaya oo hadhowdu ku sheegay xitaa inuu qabo oo dadka la baashaalaayo maqaaxidii ama meelaha oo dad qaar waagii oo cusbay meelaha iskugu imaadeen ama baabuurku u qaadayo dadka u qarnayo waxa Mareykan laga sheegay laba qof laga sheegay inay gabar cazuumeen cudurku lagu daartay gabadha isbitaalka ma gashay anaga isku kaligiin ma dad badan jiro cadaan waxa arka dad ku tirtira caduf trink dadka kala siman ana kaligiin ma laakiin anaga qofku wuxuu u damqadaa dadkiisa marka arimahaas maxaa kaligiin qofku ku dhacay inuu raaci waayo awaamirta dawladda Ibrahim أنا كور هرايو محمدو مادام سؤاشا دنبه حدان dib u yar dhigto oo degdeg ugu yar jawaabo ma taqaana labada su'aal ee labada walaal ee soo dhigaan Samatar iyo Cabdinuur soo dhigaan dooda ahayd ma taqaana Soomaalida in xanuunkan hadduu ku dhacay iyo haddii ay dhaga mareenba looma sheegin ana horta waxaan qabaa Soomaalida waa loo sheegay inta wax qortayo inta wax akhrida maanta qurbaha fadhida aad baynu u badanahay xataa hooyada wax akhriin ayaa fahmaysa
oo cilmi dhagool ama waxyaalo kale loogu sheegaa ha noqoto baanahaagaha oo loogu soo sheego la yidhaahdo xanuunkaasaa jira oo is ilaali oo guriga ka bixin oo ilmahaaga ku hayso inta awaamirta dowladda qaado taasi waa sax culimadeennii baa noo sheegtay samatar dhammaystiro culimadeennii noo sheegtay culimada noo sheegtay waay media looga saaray in hadda kala faquuq iyo in macnihii dadka jinsiyadda aan waddanka noorka ku dhalan awal waa lagu soo dari jiray maalin walba akhbaaraadka waaya maanta looga waayo haddaba anaa kuu sheegaya aqoonteeda gaaban haddaan ku daro magaaladan deganahay waa magaalada labaad weeyaan Norway Bergen laakiin marka oo isla eegto rag dhakhtara ah Soomaaliya ayaanu leenahay oo jooga raggaas loo baahnaa ma taqaanaa in ay dadka u sheegaan raggaas ayaa ahayd ma taqaanaa in dadka jaalid isku xidhaan ayaa ahayd laakiin ma dhihi karna samatar Soomaalidii aqoonyahankii ayaa ka gaabiyay kamay gaabinay laakiin shaqooyin kale ama qabyaalad kale ama waxyaalo kale ku mashquulsan yihiin waan ka yeelayaa samatar ma fahamtay waaba dhahayba aqoonyahankii anaga na soo gaarsiinay dhakhtareen leena Soomaaliya oo sala joogaan leena jaamacada ka qalin jabiyay ayaa jira anigu oo garanaya anigu lafahanteeda oo hal iyo laba aan garanaya jira sax aan ku soo noqdo su'aasha walaalkeen Maxamed kollayda dadkeena Soomaalidu waa dad wanaagsan weeyaan waa dad dhaqan wanaagsan dad taxaddar badan weeyaan bas waxa loo baahan yahay kaliya dadka in la wacdi geliyo oo wax loo sheego oo laga dhaadhiciyo xanuunkan inuu xanuun jira yahay oo guryaha la joogo oo caafimaadka laga warhayo oo idaacadaha la dhageysto oo dadka wax yaqaanana lala socdo markaa cabdinuur siina samatar waa maasantahay adina ku siina waxaan rabaa inaan ku daro waxyaabaha dadka samatar camal oo walaalkeena ku fikira waxay dhahaan Soomaalidu shaqadooda ugu badanaa waxay tahay shaqooyinka transportiga tagaasida basaska tariimankay wadaan waxaa ka mid ah caafimaadka ka shaqeeyaan dumar badan oo Soomaaliyeed oo ay yalba blaar waa sick blaar waa caafimaadka ka shaqeeyaan saas ee tahay iyagii markay gurigooda ku laabtaan dad waayeel u laabanayaan guriga waxay ku degan yihiin 6 qafood 7 qafood ku degan yihiin 5 qafood lagu degan yahay wuu ku wada dhacaa marka degdeg uu cudurku faafaya dhooyaan waa dadka fikradda samatar oo kale oo qaba marka arintaasna meesha ku darsada waxa lagu darsado samatar warbixintu way ku jirtaa intee anaga ka soo qaadnay meelaha social public ka shaqeynaa front line ma fahad kaliya ma aha anaga inaan isku aniga ma aaminsan qof Soomaali ah oo anoo kala ah inuu ku dhaco oo qof kale oo walaalkiisa ama Cabdinuur ama Ibrahim ama Maxamed Dheer inuu ku daaranayo aniga ma aaminsan haddii anaga laga dhaxelano waa shakhsi xun qofkaasna Soomaali ma aha laakiin tan kale dacaayadan waxa soo arkaa dacayad anaga gudaheena iyo banaankeenaba ah laakiin tan kale oo media inay focuska Soomaalida saarto waa inay saartaa meelihii laga soo qaadi lahaa waxaana ku cadeynaysa sababteeda uga saareen bamaantadan sababtay uga saareen aad ku cadeynayso inuu ra'yigaas baqaldanaaba صح عبد النور تفضل عباره سوقي سغال نقو ما يدي ملان ان waxaan dhihi karaa wax leeyahay anigu in wareed dad qofku isma oga moogtahay anu maantooda kale anoo isoogayn baan u tagay nimankan oo kale asxaab aan nahay amal ka soo qaad midalan sharci ma aha inaan u tago dadka gurigaaga joog baa leeyahay Soomaa hadu garatid warbaahinka garatiin ma qabtid sidoo garatiin ma qabtid ba isma ogid inaad qabtiin kale yaa ku ogid inaad qabtay kale adoo dhowr week ku jira baan soo bixi karin baalka baa leeyahay ma garatid shan nin baa u tagtay turu baa la soo dheeshay waa la soo ciyaartay waa la soo jeeday shantii nin waa qaab Soomaali soo gudbin karin baalka marka Soomaalida halka dibka ay jirto gurigiina joogay laga kari waayay dibku intaas uu ka hadlayno marka waxa way muhiim qofku inuu gurigiisa joogo saxwan mamiga ma transporta ka shaqeyso tama ka shaqeyso baalka ka shaqeeyo hadda walga yaabo qof ku dhaco qofkaas qofku ka qaado qofkii uu soo gudbin kara qof aan ku yardarsada adoo maasan Ibrahim waa ku siinaa waxa muhiim ah walaalkeen hoos oo nagu naxasuusiye in dadka qaar loo mahadnaqo hadaa reer Bergen nahay ina u mahadnaqon waa dadkeena oo maqaaxida leh maqaaxidan waa la xiray oo iyagoo waliba qaarkood ijaarka laga sugayo xireen sharaf waaye way ku maasan yihiin Soomaali badan oo Bergen degan way raaceen wixii oo Bergen ka hadla Norway Bergen way raaceen awaamirti qaar yar markas way jirayaan oo aan raacin awaamirti macnaha waxay rabeen inaan ku soo celiyo mahad celinta dhankaas waa moogtahay
iyo dadkii dadaal guryaha joogay way ku mahadsan yihiin dadkaasna aada ilaahay khayr ha siiyo waxa su'aalihii qaar la soo qoro waxaa lahay gabdhihii guriga way joogaane waxaa la keri la'ayaa lahay dhalinyaradii inay baxdo cudur keenaysaa lahay ibrahim waa ku siina tan kale waxa waaye meesha dadka badan talan qaar ay soo jeediyeen nin baa ii soo sheegay inuu okay nin la degan waa kan ninaa wuxuu leeyahy wuxuu u qariyey qab nin la degan uu ka qariyey nin la degan uu cudur ka qariyey marka waxayr adoo maasan ibrahim fadal hadalku waa laga qaato waana soo koobinaa cabaara hadloonaayo okay horta waxa weeyaan xanuunka la isku qarinayo qof walaalka aad u geynayso waa qalad taas way qaldan tahay laakiin waxa qaldan ma taqaanaa taariikhdeenii hore haddaad dib u eegtid dowladeenii hore ee dhisnayd ma taqaanaa mar koley waynu yareen markaasi cimri ahaan waxaa jirtay in dadku ku dhacay koloora ku dhacay shubanka waxaan la yidhaahdo ma garanaysaa qofkaa weydiisid ama daacuun iyo TB-ga oo waddankeenii ku dhacay Soomaaliya oo kaliya dadka waa la takoori jiray baa la yidhi oo waxaa lagu siin jiray weel kaliya ama cuntada lagu ridaa meel lagu karantiili jiray taasi waa waddankeena ayay ahayd tii baanu la imanay markaa qofkii uu qarsanayaa awowgii wixii uu ka dhaxlay taariikhdii uu ka dhaxlay buu qarinayaa saaxiibkii ama ehelkiisa ama faamilye kale uu qarinayaa taasina horta ma fiicna qofku waa inuu iskarantiilaa oo guriga joogaa haddii uu karayn uu socod badan yahay ma taqaanaa ibrahim adaa wadatida waxaa ka wadaa maya cudurka ceebaa u aragnaa ceeb baan u aragnaa sax dabcan waxaan u aragnaa Soomaali haddaynu nahay ceeb baan u aragnaa waynu qarsanaynaa qofkii wuxuu ku leeyahay xanuun ma qabo isagoo TB iyo qixi qaba iyo koloro qaba ma taqaana iyo coronavirus qaba buu ku imanaya isagoo afkiisa daacayo taasina waxa weeyaan dhaqan xumadeena weeyaan anoo dee ku talax tegayn laakiin waxa weeyaan dad ilbax ma nihin ma taqaana dad nacabda runta sheega ma nihin markasta waxaynu nahay dad qarsada oo xanuunka qarsada laakiin qabiilkan aan qarsan weeyaan ma fahamtay waxa ka xun xanuunkan maanta jira waxa ka xun mid kale aan ku darsanayaa oo muhiim ah aan ku arkay soo koob laakiin mawduuca ka bixin soo koob meeshaan waxa noogu keentay in ummadda wax loo faa'iideeyo mise ummadda in wax looga sheego horta ummadda meeshaan waxa uu maanay in dadka horta in la ilaawo maaha guri jooga waxaan kusoo qorna meesha guriga oo la joogay iyo Soomaalida maxaa kale guriga hala joogaan lahay marka adiga hadda waxa ka faa'iideeyo fiiri aniga waxaan qabaa qofka ummadda wax u sheegaya ama ku bareeray sida anagoo kale meesha soo fadhiistay inay ummadda wax u sheegaan aan qabaa ee maaha inay wax ka sheegaan samatar waa maasantahay laakiin horta hal mawduuc inaan ku dareerabay samatar gurigiisa fadhiyaa wuuna fadhiyey maanta dhan saarajeenayo inuu tareen aadame ibrahim waa u jeedin gurigiina kusoo baa inkastoo xilli dambe ay tahay laakiin badankeena guryahay badana aa wada fadhinay saaka ma bixin qoraxan kasoo jirta buurtan korre waa iska jooga anigana marka samatar annaga dadka waa wacyigelinaynaa waxaa la dhahaa hadda waa sheegnay qaabka looga hortago hadda walaalo qaar waxa ku soo dadka loo sheego wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu idris in dadka adkaarta akhristaan wacyigelinta waxaan rabnaa ku soo xirno waa ku soo xireynaa laakiin hadda falanqayntan insha Allah tacaala waxaan wadaynaa maybe 10 daqiiqo kale kadibna ama 5 daqiiqo kale wadaynaa waa soo gabagabeynaa ducooyinkii talooyinka ku soo gabagabeynaa ibrahim dhamaystira insha Allah marka waxa weeyaan horta waa sax walaalkeen siduu sheegay in dadka la wacyi geliyo ayaan halka u soo fadhiisanay in wax u sheegno wixii qof walba karaankiisa ama cilmigiisa ama talo uu ku darsanayo uma halka u imanay walaaltinimo ayaan u imanay maadaama guryahayna ku jirno marka anigu kolleyda walaalahay hadalku way dhameeyeen si fiican bay u hadleen anigu kaliya waxaan ku darsanayaa ay tahay dadka Soomaalideena maanta magaalada nala degan Bergen ama Norway degan waxa u sheeganaa dhageysanaya inay guryahooga joogaan in caafimaadkooga ilaaliyaan in ay ka warhayaan awaamirta dawladda ee waddankan aynu deganaa maanta qaxooti ku nahay inay la socdaan la janqaadaan xanuunka kolba meeshuu marayo oo deriskiisa iyo awaamir kale oo ka soo baxaysa warqadada boosta loo soo dhigayo kale taasi waa wax wanaagsan oo muhiim ah aniga marka fikir waxaan qabaa dadkeena Soomaalida inay qarsadaan maaha xanuunka maaha in walaalka u qarisa ma aha inaad u sheegto tiraado warniyo maanta anu hargabeysan hargab baan leeyahay kuma soo dhawaan karo
qofkii marka ka yara fogaato martaas waa muhiim weeyaan in aad qarisid maaha xataa dadkeena Soomaalideena waa dad wanaagsan ayaan hore u sheegay waa dad dhaqan wanaagsan waa dad diinta islaamka ku adag oo nadaafada dhinac kasta ah weeyaan marka wacyigelin baan wadnaa iyo talo bixin insha Allah marka lana soo Maxamed sheegayna waa la isku soo noqon doona dadkan waan wacyigelinayna marka wixii karaankeenay awoodeena ah marka Cabdinuur fadal cabana sugeysay anigu dee waxaan dhihi karaa dhalinyarada waa adag tahay in guri lagu jiro macnaha lagu jiro anigu inkastoo dhalinyaro cuslaadahay waa igu adag tahay inaan guri joogo horta runtaa fiican dadka aad bay igu adagtay ilaah wayna leh waana qaatib ilaahay baan ka taagnaa ilaahay waxaan hayna ka saaro intuu ina ka sabaxayo war gurigeennoo ballana gurigeena iska joogno dhib kasta aynu ku aato amore waan ku salaan amore intaas anigu waa kaa qaadna amore waa laga qaada waa maasanta Cabdinuur maxamed gabar baa jirta samatar insha Allah hay samatar dood intee noo mareysay waxay geli hadda waxay taxi dibkaas leeyahay maya waa soo telefoon ay soo waxa ku talooyinka eed way dhamaad talooyinku soo gabagabay niyo tala anigu waxa u siinayaa walaalahayga Soomaalida muslimiinta iyo duco insha Allah inay guryahooda joogaan nadaafadda ishe war xuma tashiilkan qof kale waa maqlaa qofa Soomaali waxa ku daray waxaas aniga ma aaminsani haday jirtana ummad kale ka dhacday Soomaali kama dhicin way ka dhacday xaqiiqa loo hayaa in xaqiiqa loo hayaa qofkaas laakiin waxa laga yaabaa waxa waa nul way macnaha aad u yar ee Soomaali lama dhigin shantaada furood ma sinna kaas waan ku salaanaa ka qaadna calaykum salaam marka walaalkay waxa ummadda ugu dardaarmi lahaa weysada badsada weysada hadaa bisatid hay marka صح إبراهيم أديك دردا ما جبين وطلع هذا محد عبد النور نمو جبين ميا واجب أرتا أنا wax yar baan ku darsan rabaa hadaad isiinayso maad qaana kulay wax yar fadal 2 daqiiqo fadal kulay 2 daqiiqo yar tahay horta waxa ku jira halkan waxa ku jira aqoonyahan badan oo dhinaca dhakhtarnimada ah oo asxaabteena ah walaaliheena ah waan salaaminaa marka hore iyo dadkana dhageysanaya qaasim mahad gudani magacadana Leila asxaabta dhan Abdulqaadir asxaabteena Saacid iyo dadka naga daawanaya iyo dadka naga dhageysanaya Norway meelaha ka fog ama caalamka naga dhageysanaya waan salaaminaa anigu horta anigu su'aasha ay weydiisay iyo asxaabta weydiisay waxay ahayd guri joognimadu sidee bay ku saameysay anoo soo koobaya anu waan ku sheegay waxa ku dhahay guri joognimadu aad bay ii taabatay haddana saas ay tahayna ay taabatana waa wax awaamir ay dawlad bixisay in aan oofiyo waan ku qasbanahay inaan sameeyo inaan joojiyo shaqooyinkayga iyo waxbarashadeeda inaan joojiyo waan ku qasbanahay dadkan inaan la wadaago ha noqoto dadkeena Soomaalida oo wacyi geliyana waan ku qasbanaynaa maanta halkan u soo fadhiisto taasi waa number 1 weeyaan oo walaalaha inaad u sheegto tan labaad ay kalena see uga hortagi karnaa waxaan uga hortagi karnaa waa inaan Allahaaga aaminta in qof walba uu leeyahay ajal u dhimanayo qof walba uu leeyahay xanuun uu asiibo Ilaahay uu ugu talagalay uu ku tijaabinayo uu eegayo samirkiisa meesha intuu leeyahay iyo qof lagu tijaabinayo intuu ku dhaco oo adduunka laga oofsado oo Ilaahay ka qaado ay qadarka u timaado weeyaan qofku waa inuu aaminaa qadarka waa inuu aaminaa sidoo rasuulku noo sheegay qadarka waa inuu aamintaa khayri wa sharri inta waa inuu aamintaa ma fahamtay tan labaad ay kalena ku xigtan waxa weeyaan si aan iskaga badbaadin lahayn guriyaha waa inuu joognaa guriyaha waa inuu nadiifinaa nadaafada guriyaha waa inaan qayb libax ka qaadanaa xaafada iyo dariskeena ah caruurteena faamilyadeena xaasaskeena waa in aynu iyakana qayb libax uga sheegnaa marka taasi waa muhiim naftaada waa inaad ilaalisaa oo daawooyin haddii uu lagu yiri nacam xanuunkan ma la daawo waa inaad isticmaashaa habkii aad u mari lahayd dhaqameedka iyo isku daaweyn lahayd waxaan talana soo jeedinayaa oo kale leeyahay
walaalayaal isku duubnaada dad midan noqda magaalo keliya aanu wada deganahay dad Soomaali aanu nahay waxaynu nahay dad isjecel dad qaxooti ayaynu nahay maanta oo qurbo jooga hal iska warhayo warxamata shiilka meelaha la wareegayo cunsurnimo iyo dawlad baan ugu samaysana wax ka jira ma jiraan inaga dhexdeena hadaynu kala faquuqanahay oo midna siyaasi gooni la cararaya budget iyo mid siyaasi beenaala kana dhinac la cararayo taasi ma noqonayso laakiin waxa weeyaan inaan isku duubnaana muhiim ah taasa muhiim ah وما استطيع إبراهيم هلا جوجو وروري بالك ku dar wax ku dartaa علشان ويستعل لكن يلا يسبوقن ده xilliga halti جعلك laga reebo xogaa booqashada may horta boqoshadu way iska imanaysaa Cabdi Nuur إبراهيم وقتك إن شاء الله تعالى وسوكوبنا أذكر ما أصلا وانوينك وحن قدر له إن شاء الله تعالى إن سيدو إبراهيم شيغابا dad badan waxa jira jumlada qaldan isticmaalo oo ah ilaahay waa saxanta waxa la kelmad oo xaq ah oo laakiin si qaldan loo adeegsanayo waa qofku inuu dhaho ilaahay wuxuu ii qadaraa uu dhacaayo sax way saxanta ilaahay wuxuu ugu qadaraa kugu dhacaayo laakiin ilaahay sidaas ee taa wuxuu ku faray inaad sababta qaadatid marka sababtan in laga taga maaha laga wada taga maaha qadartana in la aamini waayo maaha waa in la isku darsadaa xadiiska rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu ahaa geela ninkii oo dhahay ma ku xirtaa oo dhahay oo kama qaal alayhi salatu wasalaam geela ma dabraa mise kale waa ka tagaa ilaahay tala saartaa rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu dhahay geela dabar kadibna tala saaro ilaahay macna labadaba waa qasab in oo labadaba isku wadatid waxaan kaloo raaci lahay xilligii oo daacuun ka dhacay rasuulka sallallahu alayhi wasallam xadiis ka sugan ama umarna asagna ilaahay waafajino oo qaato fikradaas ahayd daacuunka magaalada ku dhac magalaya oo dhahay magalayna waa ka joogeynaa sababta markii la weydiin wuxuu dhahay waxaan ka cararaynaa ilaahay qadartiisaan ka cararaynaa ilaahay qadartiisaan u cararaynaa caafimaadka in loo cararo oo cudurka laga cararo xilligaasna sababii lagu badbaado waxaa ka mid ah lahaa cumar bin caasa wuxuu sameeyey camar bin caasa wuxuu sameeyey dadka buuraha kala saaraan lahaa buurahay kala koreen si dadka loo kala fogeeyo marka insha allahu tacaala adkaarta yaa ilaabin adkaarta ibrahim waxar أذكرت يا لله وحاكم أذكارها مهمة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم لو كم قصاص أخريه أعوذ بكلمات الله إنه أخرسته وحاكم دعينك أو عنك أو هذا ضدن أو قطع أو برتين برسك لقي من جلاي جنونك لقي من جلاي جذامك لقي من جلاي يو عذرة لقي من جلاي وحيابا أصلا إن شاء الله تعالى وأنك إن دعاء الكارتة حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم تضمر قفك آخره وحاكم سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقت تيدا ريتن وآخره أنت أصلا قفك أذكرت واي أو أنك أو بصناي وحكى له تأثير إنه قفك التلوين كقاطو لخاطرته وحل فريق قاطو هدي أو لكل ما قف عذرك أو سكور وريقون وجوبه هدو إلكاك مد كدو عنا أو كرنتينا أقاتد أنا يسن مرك إن شاء الله تعالى أخيرت رسولك صلى الله عليه وسلم صلى على النبي أخيرت عبد نوري صلى على النبي عليه الصلاة والسلام محمد النبي كسلي عليه مرك كسلي مرك أنا ما توقف جبير إن شاء الله دعاء كو جبير mid kale kale ilowda maxamedow samatar u daayay samatar horeynaysa samatar ma horeynaysa gal maxaa ورا هذا اللي يسوي جيش حربي أكثر شانين إبراهيم فضل دعاء كتحرين إن شاء الله أوكي محمد mid kale ku darso asxaabtiina ku darsadaan waa sax diinteenu waxyaalo badan oo duca ah wayna bartay akhlaaqiyad dhinaca ducadana wayna bartay laakiin habkan casriga aynu ku noolnahay waxa jira caruur yar aynu dhalnay baa jirta ama walaalana la ah ama ehelna la ah oo fahmi karin habka ugu sheegi lahayn waa inay noqotaa live-keena dambe in aynu ku fahamsiino ama asxaab kale oo aqoon u soo diyaarino taasina ku darso ma fahamtay mid kale rabaa duca kale rabaa kaliya aan ku xasuusiyo waxa weeyaan in dadku ku duceystaan ducooyin badan baa jirta Allahumma inna na'udhu bika min al-barasi wal jununi wal judani ومن سيء الأسقام ومن السوء الوباء وسيء الأسقام بقى ما فهمتي سيء الأسقام إن شاء الله ها مركا دعاءنا هلا بديو قفك أجرنا أفكمال إن شاء الله الحمد لله مركوا دعينا إن شاء الله الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على نبينا محمد إلى أنت مسلم
oo xanuunkan uu ku dhacay oo xanuunsan ilaahay ha wada caafiyo intaa garanayn ilaaha ka caafiyo intii ay dhaleen ilaaha ka caafiyo inta uu ku dhicno muslimiin ah kulligoodna ilaahay ka badbaadiyo cudurkan intii uu haayana dhammaantoodna ilaahay ha wada caafiyo oo wada ducinayna dhammaantood inta muslimiina ilaahay inuu waxa kaloo ilaahay ka baryaynaa inuu ilaahay cudurkan naga dulqaado anagoo dhan naga dulqaado inuu cudurkan ka qaado caafimaad ilaahay noogu bedelo in anaga ilaahay u soo laabano ilaahay u toobad keennana waa muhiim ilaahay adaa kuu toobad keennay wixii naga qaldam ilaahay naga cafi وصلى الله على سيدنا محمد سمتر بهال سمتر بهال الله خيرا ما سنتي ما انت فرستي جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته